bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa xanta wararka qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya dil wadareed magaalada gaalkacyo duleedkeeda loogu geystay 10 ruux oo ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin dalka hore u soo maray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo madaxweynihii hore ee galmudug oo arintan si adag uga hadlay warar dheeraad oo la helayo meydad hor leh oo saakay laga helay duleedka magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaa daawan doontaan maamulka koonfur galbeed oo war ka soo saaray dadkaasi lagu laayay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qodobada kale waxaa qayb ka loolan dowladaha Mareykanka iyo UK ay uga jiraan Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur maxay tahay xog iyo xaqiiqo faahfaahsan ayaan idinku soo gudbin doonaa dowladda Soomaaliya oo war degdeg ah ka soo saartay weerarkii lagu qaaday dalkaasi Sacuudiga qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada warkeena oo faahfaahsan marka hore haddii aad tahay qofku cusub channelkeena oo aad markii ugu horeysay aad daawanayso ay tahay fadlan subscribe sar qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada sidoo kalena share si ay saaxiibada kale ay u daawadaan aynu ku bilaawno warkeena Dable Huwaysan ayaa xalay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ku dilay taliya Cali Tahliil Cadceed Cali Diif oo ka tirsanaa ciidamada maamulka galmudug dilka oo ka dhacay gaalkacyo dhanka maamulka galmudug waxaa geysay Dable ku hubaysnaa bastoolada isla markaana rasaas la dhacay xilli marxuumku uu fadhiyay goob lagu shaaho sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka Cali Diif ayaa ka mid ah saraakiisha ciidanka nabad sugidda maamulka galmudug waqti kadib dilka taliyaha ayaa waxaa meel aan sidaas uga fogeen meesha uu dilka uu ka dhacay lagu dilay 10 qof oo la sheegay in ay arsi ahaan loogu arguday taliyihii bastoolad leyda ay dishay wararka qaar ayaa sheegaya in dadka la laayay ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana ay haayeen dad sanadihii la soo dhaafay guryo iyo goobo ganacsiba ku lahaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynihii hore ee maamulkaasi galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in dadkii la dilay ay ka soo jeedaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayna tahay in cadaalad ay helaan xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa ah weli mid kacsan waxaana arintan ay noqotay mid si weyn looga hadalhayo guud ahaan Soomaaliya xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna dhankiisa si adag arintan uga hadlay waxaana uu sheegay in aan wax la aqbali karin aysan ahayn wixii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xalay dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana si adag uga hadlay arintan waxaana uu sheegay in dhacdadii dadka lagu laayay ay tahay in fariin gaar ah uu u dirayo maamulka galmudug oo uu uga dalbanayo in ay si dhab ah arintan ay u baaraan kiiska dadka uu ku soo baxaana cadaaladda la mariyo dhanka kale maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay dadkii lagu laayay magaalada gaalkacyo ee mudug kuwaasoo sheegeen inay ka soo jeedaan deegaanada koonfur galbeed dadka la laayay ayaa gaaraya 9 ruux oo isku reer ka soo jeeda waxaana dhammaantood loo dilay lana xiriiriyay dil loo geystay sarkaal ka tirsan nabad sugidda maamulka galmudug wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Ugaas Xasan ayaa warbaahinta qaar oo la hadlay waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay dilka wadareedka loo geystay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ee gaalkacyo lagu laayay wasiirka ayaa warbaahinta u sheegay in baaritaano hadda ay wadaan isla markaana saacadaha soo aadan warbaahintu ay la wadaagi doonaan waxa ka soo baxa baaritaanadooda Ugaas Xasan carabka ayuu ku adkeeyay inay jiraan dad koonfur galbeed Soomaaliya ka soo jeeda kuwa uu cabsi awgeed aynaan xalay ku hoyan guryaha ay gaalkacyo ku leeyihiin dhawaan ayay ahayd markii maamulka galmudug ay beeniyeen in ay soo saareen amar la sheegay in deegaanadiisa uu kaga mamnuucayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya hadba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal dhinaca kale 6 bil oo kaamil ah ayaa u buuxsantay si kale hadii loo dhigana waxa uu xiran yahay muddo sanad kala barkiya
waxaa nin saameyn ku leh doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya xilligii uu taagnaa doorashada oo hadda madaxtinimadeeda uu ku fadhiyo Cabdicasiis Laftakare. Dad badan waxay aaminsan yihiin in haddii tartanka uu ka qayb qaadan lahaa xilligan isagoo hogaamin lahaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Abu Mansuur ilaa hadda ma helin cadaalad waxaana uu ku jira xabsi ay maamusho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Soo qabashadiisa waxaa ku dhintay dad badan oo shacab ah waxaana sidoo kale ka dhashay qalalaase xoog leh. 6 bil kadib xanta wararka ayaa maalmahan waxa ay waday baahin xogo ku saabsan xaaladda Abu Mansuur iyo xoogagii uu ka tagay ee ku sugan Abal. Baaritaan ay sameysay xanta wararka ayaa waxa ay ku ogaatay in dowladda Mareykanka iyo dowladda wadankaasi Ingiriiska ay dadaal xoogan hadda ugu jiraan sidii wada shaqeyn ay ula yeelan lahaayeen Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. Mareykanka ayaa dhaqaale xoog leh ku bixinaya ciidamada Abu Mansuur iyo qoyskiisa waxaana uu ka dabacsan yahay in uu la shaqeeyo hawlgalka Mareykanka ee ku hoolan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada maadaama Mukhtaar Robow xog badan uu ka hayo arrimahan. sidoo kale dowladda wadankaasi Ingiriiska ayaa wada dadaalo ay ku raadinayso wada shaqeyn Abu Mansuur ay la yeelato oo ay hadda u arkayso fursad muhiim ah wada shaqeyntiisa. safiirka dowladda wadanka Ingiriiska ayaa horay u qaabilay Mukhtaar Robow waxaana waxyaabihii ay ka wada hadleen kamid ahaa wada shaqeyn dhex marta Robow iyo dowladda UK. ninka sidaas ay u raadinayaan dowladaha reer galbeedka ee Mareykanka iyo UK ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya aysan uga faa'iideysan dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal degdeg ah waxa ay ka soo saartay duqeymo kooxaha Xuutiyiinta wadanka Yemen ka dagaalanta ay la baagsadeen dalkaasi Sacuudi Carabiya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay aad u cambaareynayso 2 weerar oo argagixiso ah oo Xuutiyiintu ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee gobolka Caasir ee koonfur galbeed dalkaasi Sacuudiga dhaca. dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay in dowladda Sacuudiga ay ku guuleysatay maalintii Khamiista ahayd oo taariikhdu ku beegneyd 13 Juun in ay hawada ka qabato 5 gantaal oo laga soo riday jihada garoonka diyaaradaha Abha iyo xaafadda Khamis Mashaid ee wadankaasi Sacuudiga. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gantaal ku soo dhacay garoonka diyaaradaha Abha gaar ahaan qaybta rakaabka ay ka soo degaan ay keentay inay ku dhaawacmaan 26 qof oo ka soo kala jeeda wadamo kala duwan taasoo dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay halis ku tahay amniga gobolka isla markaana ay wiiqeyso dadaaladii qaramada midoobay ee xalka ugu raadinaysay wadanka Yemen. ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya war-saxaafadeedka oo ku qornaa afka Carabiga ayaa ay ku cadeysay inay garab taagan tahay dowladda Sacuudiga oo ay sheegtay inay wajahayso weeraro naxariis darro oo kaga imaanaya gacmo dambiilayaal ah oo doonaya inay sare u qaadaan falalka dambiilanimo ee ka soo horjeeda qiyamka caadooyinka heshiisyada caalamiga ah iyo sidoo kale diinta Islaamka. waa naga intaa saaxiibayaal warkii aad ka daawanaysay xanta wararka waad ku maasantiin daawashadiina. haddii aad ku cusub tahay mar kale ayaan idin xasuusinayaa inaad subscribe like asiiso qaybta hoose aragtidaada aad dowladda